Afhayeenkii hore ee maamulka Cabdicasiis Laftagareen Xasan Cabdi Maxamed ayaa gobolka Gadow ku soo bandhigay ciidamo ku hubeysan hub fudud iyo mootooyin feekoon ah kuwaas oo abaabul ciidan ku jira. Laftagareen ayaa muddooyinkeednaba gobolka Gadow ka waday qorshe uu ku doonayo inuu dib ugu noqdo magaalada Baydhabo, iyadoo Baydhabo ay haatan ka socdaan u diyaargarowga doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, halkaas oo musharaxiinta ugu cadcad uu ku jiro Aadan Madoobe oo qayb ka ahaa qorshihii siyaasadeed ee meesha looga saaray Laftagareen. Ciidanka uu abaabulaya Laftagareen weli lama oga cidda dhab ahaan taageeraysa, balse qorshahooda ayaa u muuqda mid lagu carqaladeynayo in doorasho nabad ah ay ka dhacdo Baydhabo. Falaqeeyayaasha ayaa sheegaya in abaabulku uu yahay mid si taxadir leh loo qorsheeyay, iyadoo ciidanka lagu tababarayo dhaqdhaqaaqyo degdeg ah oo ku saleysan mootooyin iyo hub fudud. Warbixintan ayaa muujinaysa in xaaladda Baydhabo ay ka sii dareyso, iyadoo abaabul ciidan oo ka socda Gadow uu ku soo wajahan yahay magaalada xilli doorashada madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed ay soo dhowdahay. Wixii faahfaahin ka soo kordho halkan ayaan kugula wadaagi doonaa.